السلام عليكم. maanta sheekadan idin wada waa sheekadii ugu xiyaabka badneyd ee Soomaali qurba joogta ay ku dhacday. sheekadan waxay tahay inan 34 jir ah bay qurbay tagtay adu qurbay markay tagtay dadka la faayir yar ee iska jinkeer bay ahayd 13 sano isku dhiibtay. kadib markay 13 sano isku dhiibtay inan baa jiray muddo dheer oo socdeen da'deed caadi yaqaaniyo inkii wuxuu dhahday soo dhiibto daasad cesho Yurubtan isku kursan way hibitay aabaheed u tirtay. aabaheed markii lala hadlay leeyahay inantii wala soo doonay wuxuu yiri inanta see la iga guursadaa inanta laba wiil la iimay dhoof laba gurna iimay dhisan xaj kaliya hadda tag maxan ninkan iyo waxan ma nasiinay maamada waa bido tiri inanta waa 34 jir ugu bay rabtaa iska dhaaf iska guursatay waa ka soo mid kale inanka guursanay ayaa intaaba ku sameeyay ma soo baadeen xawal soo baaday adigu maxay tisaa ku sameeyay bas marka inanka horta arrintaas markay ku dhacday ayuu heesto tiriyay balaan dhigeysiyay sugayniyar ababigi nartahay ana ku bareedayo because aniga ku jecel mamada isbaranayo iyadu waa aabesti waban baradalka muxumayn ولكن أبها محوئنا باريا وي محوئنا باريا ماما دايس بارنا يدوى أتستي براد الكرام حوينا ولكن أبها محوئنا باريا حدوئنا بادوايو بيجي صلح ماضو وحانا هاي وي وحانا هاي ها وحانا هاي أيما sheekada waa fahanteen wuxuu yiri maxay haytay maamada waa isbaranay iyadu waa best woman brotherka muu xumayn bad laakiin aabha wuxuu iga baarayaa hadii uu iga baaqan waayo oo breegiisa xumaado aniguna waxaan ahay baarban xumaanaya sheekada horta inanka heesta soo qaaday hadaba inankii maxaa ku dhacay markii uu gabadhii isaas loo siiyay saaxiibtiriyo dunyada kale kiciyay inankii uurbay gabadhii yeelatay ilaa wasdix isman jir mogtahay inantii markii dhaqaatiirtii wixii arkeen baa waa maxay uurkani yaa ku siqir suujiyay alla inantii waa la siqir suujiyay ninkii baa la raadiyay ninkii markii la raadiyay baa la soo telefoonadii waa la baaro waa la qeeyay kadib waa la soo helay markii la soo helay baa inankii maxkamad loola cararay hadda arrintii waxay taagan tahay inantii hadday taado anigu 34 jir baan ahay Yurub baan isku dhibay sharciga ku qaadanayay wala musaafirniyo dalka laga saaraya inankii hadii la aamusay inankii maxkamadda ku jiraayo waxa la xeerka qoyska qabtayo waa kaas maxkamadda ku jira marka sheekadaas inkii yaaba dadka yaraanta isku dhiibay ee lafaha yaryar waa dhibaatadaasi leeyihiin inankii hadda maxkamad buu ku jira ee wuxuu ku jira xabsi ku jira maxkamad baa la soo taagay wuxuu leeyahay meer baa si qeysootisay iyadii waa naxsan tahay haday sheegto 34 jir baan 13 kan waa isku dhiibay wadanka laga musaafirnaya xaaladii ugu yaabka badnayd baa inta halkaas ka taagan sheekada waa sheeko runa waxa ila soo wadaagay liibaan diiriye in la yiraahdo oo Jarmalka jooga iyo saaxiibkiisa oo hadda magaciisa baa iga yaray maqan saaxiibkiisa laakiin saaxiibkiisa ayaa ila soo wadaagay oo kuba dhex jiro iyo ku dhex dhinto marna inantii iyo inankii iyo maxkamadii iyo hawlihii oo dhan ku mashquulsan marka qurbaha waxa ka dhacaya waxyaabo badan dad yar la isku dhiibaya